daawadayaal halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu xiisaha badan. Qodobada ugu doorka roon ee maanta idiin haynana waxaa ka mid ah Maxamed Cagjar oo lacagihii microfinance-ga doodaya, afhayeenkii TPLF oo armaata ku sugan iyo ciidamada Tigreega oo magaalooyin badan furtay hub iyo gaadiid aad u tiro badanna la wareegay. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, gambaleelka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. fideogana like saar, share dheh asxaabtaada la wadaag, wixii tala bixinaana xagga hoose nagu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. Maxamed Cagjar ayaa naloo sheegay inuu isugu yeeray maareeyayaasha hay'adda lacagaha yaryar ee Somali Microfinance Institute, isagoo ku amray inuu maareeyo walba soo qaado lacagaha yaalla laanta xafiiskiisa. waxaana socda boob cad iyo kala yaac lagu daabulanayo hantidii shacabka ee deegaanka tiilay. Maxamed Cagjar ayaa wuxuu rabaa inuu lacagaha microfinance-ga degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka yaalla oo ay ku jiraan lacagihii shacabku ku kaydsanayeen hay-adda ee ay ku aamineen inuu kala wareego dhammaan maamulka hay-adda inta boorsooyin lagu soo guro, kadibna uu Nairobi uga xawisho bangiga Dahabshiil ee ku yaalla daanta Somaliland ee Wajaale. waxaana loo xaqiijiyey Maxamed Cagjar inuu tiro ka 3 jeer in ka badan toddobaadkan gudihiisa uu tegay Wajaale isagoo boorsooyin madmadow ku qalabaysan oo wata gaadiid khaas ah iyo ilaalo tiro badan. haddaba waxaan maamulka hay-adda Somali Microfinance Institute u sheegaynaa inaysan ogolaanin in shakhsiyaad ay u fasaxaan dhaca hantida shacabka ee ay mas-uulka ka yihiin. haddii ay ogolaadaanna kasakow xisaabta aakhiro waa inay maanka ku hayaan inuu xaqa ummaddu soo qaban oo mar uun sharciga la horkeeni doono. ceeb adduun ay ka raaci, shilimada laga siiyana ay maalmo kooban ku soo dhammaanay, aakhirana cadaab daran oo ugu horeeyo. dhacaasna ay iyagu u qolan yihiin. dhanka kale waxaan shacabka deegaanka ku wargelinaynaa inay ka warhayaan dhaqdhaqaaqyada ay shakhsiyaadka mas-uuliyadda haya ku boobayaan hantida dadweynaha oo ay ilaashadaan hantidooda iyagoon wax cabsi ah dareemin, waayo tuug cid ka fulaysan ma jirto. ee hantidiina ka rita kuna dhiirada inaan laydin dhicin oo aad hantidiina microfinance-ga taalla u soo jeedaan. Getachew Reda oo ah afhayeenka jamhadda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF ayaa qoraal yar oo uu soo dhigay ardayga dalkiisa Twitter-ka ku sheegay inuu ku sugan yahay Alamaata, magaaladii shalay ee ciidamada Tigreegu furteen kadib markii la maray buu yidhi ciidamadii Abiy iyo Aaganyow Tashaagar ee caruuraha layn jiray. waa sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna intaas ku daray in xoogagii axmaarada abaalkood laga waraabiyey, tallaabaday u qalmeenna laga qaaday. waxaan sugaynaa buu yidhi afhayeenku, bal waxa ay hadda Abiy iyo aydiisu u sheegaan taageerayaashooda. foos ka maran ayay wadaan. dhanka kale ciidamada Tigreega ayaa goor dhaweyd qabsaday magaalada Maydsabar oo ay shacabku si weyn ugu soo dhaweeyeen. waxayna ciidamada xoogga Tigreegu ilaa iyo shalay furteen qalab, gaadiid iyo hub aad u fara badan isugu jira oo aad moodo in hubkii dalku uu gacantooda dib ugu soo laabtay. waxayna deegaankooda
ka sifeeyeen guud ahaan maleeshiyaadkii axmarada ee 8 bilood ku siisamayaasha ku joogay